gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleymaan Xasan Xaddi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Rays ee magaalada Boorama ayaa ka hadlay jid ku yaala bartamaha magaalada Boorama oo muddo xaniban wadadaasi oo dhererkeedu yahay 3 kiiloomitir ayaa laga dhigay jid laami ah taasi oo ay dawladda hoose ee degmada Boorama ay hore u ballan qaaday inay degdeg u dhameystiri doonto jidkaasi gudoomiyaha Suleymaan Xasan Xaddi wuxuu xusay in jidkaasi uu xaniban yahay qalab la'aan isla markaasina qalabkii yaalay gobolka Awdal ee ay lahaayeen hay'adda dhismaha wadooyinka ee gobolka Awdal ee magaceeda la yiraahdo Asarda ay hadda hawl shaqo ka wadaan jidka u dhaxeeya magaalooyinka Boorama iyo Dila waxaana ka mid ah hadaladiisii ka golo deegaan ahaan dadku bulshadu waxay aaminsan yihiin wadada imika la wado in caqabado ka yimid xagga maamulka degmada Boorama in ay u taagan tahay wadada oo dhismaha runtii dadkeenuna oral society runtii waxa qurux badan wixii xaqaa'iqa in lagu hadlo waanu ka xunahay horta muddo inta la kumaanaan tala gelin wadadu inay xidhnaato laakiin waa wax ay keentay baahi jirta in ay keentay wadadan sidaba waxaan kontract ku siinay Leader Company in qalabka maanta gobolka Awdal ku xisaabtamaya waa inta ay haysato shirkadda Asarda waxa noqotay markaa in wadadii dib u dhacdo runtii dadku way nacanaanayeen dad badan baa iimaanay dawladda hoose oo laha waxaad qabataan iska daaya golaha deegaanku durta ma wadooyinkii u xidhay ma ka dariyo dib u dhalba marka waxaan maanta aad ugu mahadnaqaynaa bulshada reer Boorama gaar ahaan inta ay saameynayso wadada weyn ama meherada ku lahaado ama iskaga talaabo ama gurigiisa ku yaalaan in wadadii horta in badan baynu u sameernay ay bilaabmayso bari wixii ka dambeeyay inay bilaabmayso wadadii qalabku ay kaga maqnaayeen wadadii way dhamaatay way soo xidheen Asarda intii u diyaarsaneed oo ahayd 3 kiiloomitir sidaan u malaynayo qalabkii xalina waan wada hadalnay waxay yiraahdeen maanta oo khamiis ayaan ku soo wareejinaynaa jimcana inay bilaabmaan ayaa suurtagal ah hadii Ilaahay raahdo waxaan laakiin dadka fahansiinaynaa oon horta waan ku cudur daaranaynaa qaabka ay dib u dhacday ma naafilin runtii laakiin waa wax iska amridahay كمبيني لبسيسو خسارة كقبا وما تدور روم كيمادو واحد كورجو سان كرماها لقى حانا إنه بدل كوباهيننا واحد كقبا كرماها هي خسارة كقبا لكن إلهي يكو أسترو وكا إن كل يعبد عبد الله يقرأ فرديا يساقا كترجمي لكن واحد شعلها هاي من دفك إنه نبرياميو ولو أنه ذكر عصبنا هذا الله يجا حبون بوريننا ما هذا الليل أنه لنا هاي كمبيني قالب كيف حساتبي دي ودعي يجانا قعدت كهيي wax loo kasayna maahan dadka kalena qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Boorama oo uu helinayay gudoomiyaha iyo madaxa shirkadda qandaraaska qaadatay ee Leader Construction ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay goorta la dhameystiri doono jidkaasi waxaana ka mid ah hadaladoodii waxa dhacay lacagtii laftooda inay naga raajiyeen oo ay ku dhacday in 10% kii horeeyay aanu shalay helay ilaahay mahadi in markuu maayar kula hadlay in fact waxaana keenay contractkii ku beegna 3 December ilaa 3 March inuu dhacay oo maayarka u keenay xitaa warqadii dabadeedna ay contractkii dib u jadiidiyeen alxamdulillah inkuu soo dadaaleen wixii maanta ka dambeeya insha Allah waanu dhamaynaynaa wixii awoodeeda in dadweynuhu noo dul qaataan dawladda hoosena maaha sababtu waxa weeyaan anagiyo oo Asarda iyo shirkadii dhaay laakiin dawladda hoose iyo xildhibaanadu wax qalad ay ku leeyihiin ma jiraan waliba saa way dadaaleen culays aadayna saareen dadweynaha waynu ku raali gelinaa dawladda hoosena waynu ku raali gelinaa saxaafadda lafteedana in ay noo dul qaataan oo ayna iyagu runtii gobolka hadii ka soo jeedaan wixii horumar ah inay wanaagga ka sheegaan waxa kale hata inoo dhacay waa qalab la'aan waxa ka codsanayaa ganacsatada iyo dadka hantida leh runtii inay soo iibsadaan qalab ummadana ugu shaqeynayna ay ka faa'iideystaan anoo taasana gudbinaya ganacsatada waxa kale oo maanta ilaahay maadiyo wadadii Sheekh Cali Jawhar oo hadda ka yimiday intuu maayarku ku jiray shirkii Shaaba oo iyada lafteeda dawladda hoose ay ballan qaaday qaybteedii maanta oo la fulinayo sida ugu dhaqsiyaha badan iyadna runtii wax qabadku aad buu u ballaaran yahay diyaarna waa loo yahay si kastaba ahaatee dhismaha jidkan oo ah wadada wadnaha ah ee marta bartamaha magaalada Boorama isla markaasina muhiim u ah isku socodka jaamacadda Camuud iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama ayaa bilicda iyo fayadhowrka magaalada
wax weyn ku soo kordhin doonta marka la dhammaystiro dhismaheeda oo ah mid laami ah. Haashim Sheekh Cumar Good, Somalisat TV, Boorama.